kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono xildhibaan hore Maxamed Xasan Ibraahim oo loo yaqaan xildhibaan qoona baarlamaanka Soomaaliya ayuu ka mid ahaa ugu yaraan 20 sano ee la soo dhaafay siyaasadda ayuuna aad uga warhayay laakiin sanadkan ka mid ma ahan baarlamaanka 11aad ee dalka deegaan doorashiis waxay ahayd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ka wareysan doona si gaar ah xaaladda deegaanada maamulka Hirshabeelle oo xilligan xaalad aad u adag wajahaya mudan soo dhow waqtigaadna siisoon kaaga mahad celinayna marka hore Soomaaliya isbedel ayaa ka dhacay dawlad cusub oo dhalatay madaxweyne cusub iyo rag kale Soomaaliya siyaasadeed muddo ku jiro astaqaanaan baa dawladii hay'adaha ugu sarreeya hogaaminaya aragtidaas guud xaaladda siyaasadda Soomaaliya waaya bismillaah marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda iyo telefishinka radio kulmiye iyo dhammaan dadka ka shaqeeya saxaafadda waxaan si gaar ah u xusayaa dhalinyarada saxaafadda ka shaqeynaysa ku dhaawacantay gobolka Hiiraan ilaahay caafimaad ha siiyo ku dhintay jannada Allah ka waraabiyo haddii aan soo laabtay su'aashaada ee ahayd dalka isbedel ka dhacay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay isbedelka dhacay dalka 5 sano la soo dhaafay afduub ayuu ku jiray dhibaato ka jirtay xagga siyaasadda xagga amniga xagga isu socodka is-aaminka wuxuu ahaa dal يعني كتليان دد عن أهل وأهين سومال لماذا أهل وأهين ولا لماذا أو وحي هذا الكلام كده عادي كصحافة كشغين سو أكتين ددا كهو هذا الجودوجي ددا الدليل جبرة الدليل كسال الدليل والقف كسال دباتي معمول هذا كده عاي وأكتين ددا كهبونين أما أن أهل وأهين يلا جي يعني ضلك وحكوا جرا مرحلة عن القياس كريشان تسنة الصورة في وعليه إلهي مهدي واي هدي هدد إيمادين ضلك يدد كأن حيو وسومال لماذا صور وين يو وسومالي نبضه Soomaali heshiis ah iyo dunida heshiis la ayaa ku dhigay madaxweyne xasan sheekh aha waxaan isleeyahay nin nabadeed oo dalka muddo soo hogaamiyay way haddana dadku ay kalsooni badan ku qabaan insha Allah waxaan leeyahay Allah xilkiisa u fududeeyo waan u hambalyeynaa waxaan leenahay waa nin ku haboon waqtigan oo oday ah oo Soomaalidii 5 sano kale dhowday inuu isu soo celiyo oo walaaleeyo waxa gobolka ka taagan iyo wax Hiiraan ka taagan iyo waxa Soomaalida guud ahaan ka taagan wax Hirshabeelle ka taagan nin inuu xalliyo ka sugayno waaye insha Allah ta'ala guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan yani maamulada dhibaatada ka jiraan oo cabashooyinka ka taagan yihiin sida Hiiraan oo kale iyo Gado kale waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu jid wanaagsan oo xal u helo oo soo dhaweeyo waa mahadsantahay 5 sano la soo dhaafay waxaad qayb ka ahayd baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya horena dawladda qaybaad uga ahayd dadka hadda Soomaaliya madaxda ka ah kuma cusba madaxweynaha hore loo soo arkay gudoomiyaha golaha shacabka hore loo soo arkay gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha oo siyaasadda meel kale ugu jira ayaa isagana qayb ka ah wadanka ayayna joogeen afartoodaba ma isleedahay waxay haystaa Soomaaliya markan fursad wanaagsan aad iyo aad Soomaalidu waxay ku mahmadaa aad iyo aad mahadsan Soomaalidu waxay tiraa ama ugub gado ama aqoon gado neefka markaad gadanayso neef cusub oo aan la aqoon intuu caanihiisa iyo wixiisa wala gataa Soomaaliya hadda waxay gadatay ee aamintay ee dooratay niman la yaqaan يعني أقونتي حسن شيخ من مدحوين سوها وأن الصومالية جوجي نيكلا سبيكر كبرلمان كا هذا مذوبي وحنين سواها عبد حاجي أغلق السر سدوا كله يعني وضد لو ذا أجي هاي يعني والدنيا دودة الصومال لما دودة هي وحقبت كود الأمسين هاي الصومال رجوين أي كله هاي إن شاء الله تعالى ماشي هذا ودن طبعا ودن كهذا هو تاجي هاي تضربية طبعا كي سديد فبراير ماشوا تاجنا أيوه تاجي هاي يا رب إني كذا قاجيان oo Soomaali nabad isu keenan waxaan is leeyahay raggaas waa rag Soomaali matali kara laguna doortay way aragnimadooda iyo wadanka inay u naxayaan wadanka wax badan ka dhacay 5 sano la soo dhaafay baarlamaankii Soomaaliya oo ahayd inay dalkan dawladdiisa maanin gareeyaan madaxweynuhu la xisaabtamaan xukuumaddu la xisaabtamaan wad ku jirtay maxaa kugu yaabadnaa ama kugu culus oo ilaa hadda qalbiga ka go'in oo 5 sano dhacay oo aad awood u weydeen inaad ka gashaan runtii wax la soo koobi kara maahan laakiin dalku baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaan jawaari u dambeeyay prime minister kama jirin madaxweyne kama jirin hay'adaha amniga ayaa dalka maamulay 5 sano soo dhaaf yani wax dimuqraasiya iyo wax oo baarlamaan ah iyo wax golaha wasiiraha kama jirin qayrana meesha uu iska joogay prime minister ma ahayn insha Allah ninka markuu yimid Roble ayaa dadku nafiseen oo dareen dawladnimo iyo ay timid in dadka la aamino dawladda la aamino at least xukuumadda la aamino doorashooyinka soo hogaamiyeen oo uga mahad celinayaan ninka la yiraahdo laakiin dalkaas intii uu khayr joogay prime minister ma jirin madaxweynena dalka ma lahayn waxa laga xukumayay hay'adaha amniga ayaa maamulay dalka hay'adaha amniga waxay maamusho garan kartaa yani hay'adan la dooran
qof aan la dooran qof aan dalka lagu aaminin ayaa dalka loo dhiibay cabdiraxmaan cabdishakuur wixii ku sameeyay waa garan kartaa ikraam tahliil waxaa lagu raajo waa garan kartaa isteedada wixii ka dhacay waa garan kartaa yani madaxweynayaashii diyaaradaha loo diiday inay ku dhafaan waa garan kartaa maa'ida hotel maa'ida wixii ka dhacay sheekh shariif madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan wixii ka dhacay waa garan kartaa yani intaas waxa waa dalka in oo dimuqraasiyo iyo isdoorti iyo wanaag ayay dadkaasi ay raadinayeen cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh iyo ninka la yidhahdo muxuu ahaa sheekh shariif iyo waa garan kartaa dhibaatooyinka la kulmeen dalkana waa erga oo tihiin marka waxaan leeyahay dadkaas ilaaha dalka ka qabtay dalka hadda nimanka madaxda ka ahna waxaan ku rajooynahay Soomaali nabad ah oo isjecel inay maamuli doonaan haddii ka tagaan Soomaali nabad ay ka tagi doonaan isku dayday inaad xal u heshaan ka baarlamaan ahaan madaxweynuhu ma kala kulanteen arrintaas idinka doortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada ahaydeen waxa ugu badan oo dhibaatada wajahayna dadka aad matashaan xamar ku nool bi ahayaan ama gobolada ku teesan madaxweynaha ma kala hadashan runtii aniga ma dooran Farmaajo dadka Farmaajo doortay ma kamid maahan dadka impeachment ka qoray ee ka soo horjeedaan kamid aha mana dooran waana prime minister hore u ahaan jiray waa aqin aniga hore waa aqin marka ma dooran barkee waxaan u dooran wixii aan ka baqay way soo baxeen dalku inuu dayacmay ayaan aaminsanaa mid kale waxa dhacay dalka markii la inqilaabay baarlamaanka waa markii Jawaari la riday Jawaari lama ridin waa la inqilaabay inqilaab military ayaa baarlamaanka ka dhacay baarlamaanka dib uma shaqeyn prime minister wuxuu ahaa nin karaani u ah xasan cali khayran wuxuu karaani oo Farmaajo oo ah xafiiskiisa wax ka qoray ka shaqeeyay prime minister dalka ma ahayn haddiiba idinka aad ogolaaday in idin la khilaabay ama aad awoodiinii hoos loo dhigay wax lagu dhaliilo ma leeyahay baad leedahay ra'iisul wasaare magacaabis ku yimid xasan cali ra'iisul wasaaraha baa siyaasada dalka baawarka asal la siiya baarlamaanka markuu baasiyo ra'iisul wasaaraha waxa way xukuumadda iyada siyaasadda iyo jaangoyada madax ka ah ra'iisul wasaaraha marka haddii uu yiraahdo maxay ahaydii Jawaari sida lagu riday sharci ma ahayn sida asiga lagu riday sharci ma ahayn waa garan kartaan 7 daqiiqo lagu riday isaga yani waa garan kartaa marka dalka inuu iska jirin baarlamaan askariga nisaa iyo baarlamaanka askariga nisaa qiimo badnaa baarlamaanka tobanaad marka waxaad tiri Farmaajo anu ma dooran waan aqaanay wixii aan ka fahmay muddadii uu ra'iisul wasaare ahaa baana sababta inaanan cod siin maxaa ka ogeed Farmaajo waa nin dadka madaxda u ah ama dhaqanka ama siyaasadda ama odayaasha ama aan la macaamilin ee bulshada dadkeeda liito lama caamilo waa garan kartaan garanaysaa degmooyinka iyo hooyooyinka iyo ciyaalka iyo Facebook iyo waxaas ka shaqeeyay nin shaarica siyaasadda shaarica ka shaqeeya Farmaajo nin dadka elite Soomaali u ah Soomaali galbeed markuu dalka qabsaday madaxweynuhu ka noqday Farmaajo waxa la wixii adduunka macaamil lahayn wuu gooyay gobolada dhibaato ka dhacay waa garan kartaan baydhabo dadka wixii ka dhacay waa garan kartaan wixii Hirshabelle ka dhacay waa garan kartaan waxa ka dhacay Galmudug waa garan kartaan yani nin wuxuu ahaa dalkan aan u naxayn gadaha xataa uu ka soo jeeday isaga isirhan waxa ka dhacay waa garan kartaan yani baarlamaanka dadka ka reebay hadda yani ciidamo u geeyay nabad kama shaqeeynin nin nabad inuusan ahayn saas ugu garan kartaa marka waxaan ku aqoonay nin aan dadka madaxda u ah aan qadarinayn ee rabo dad liito hoos dadka hoose ee aan ra'yiga lahayn ee aan wax diidi karin ee wax aan baya dhihi karin dadkaas uu la macaamili jiray Soomaali galbeed waxa tir adduunyo ka soo xiray waan ogaa inuu dhibay qalbi dhagax muxuu kale ku sameeyay Soomaali galbeed wuxuu ku sameeyay jabhadii oo uu halgamaysay ilaa 1945 ilaa maanta uu halgamaysay Soomaali galbeed ayuu yiri argagixiso yani taas wax ka weyn oo qof Soomaali sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo hoos yani ururkaas oo Soomaaliya rag badan iyo dhiig badan iyo dhaqaale badan ugu fadhiyo ayuu yiri waa argagixiso yani ururada argagixisa lagu daro yani wax ka weyn oo lagu sameeyay lahaa Soomaali galbeed ma jiraan maalintii la sameeyay Abriil 2021 muddo korarsiga waa joogta baarlamaanka waa joogtaa see u dhacay marka ma furan baa dhacay oo si xalaal ah oo baarlamaanku hadda meesha baarlamaanka ma jirin oo waxay iska ahayd xero oo markuu rabana Farmaajo uu furo markuu rabana uu xiro hadda miisaal miisaaniyadda dalka oo shalay daraa laga doodayay intii oo Farmaajo madaxweynaha ahay miisaaniyadda lama xirin xisaabiyaha guud xisaab ma soo xirin dalka xisaabaad yani laga qaban ma garanaysaa waa garan kartaa bani budooha baarlamaanka iska saxiixi jiray miisaaniyadda yani ma garanaysaa xisaab xirka yani waa garan kartaa dalka insan nidaam ka jirin in uusan ka jirin maxay isla xisaabtan oo waxa la wixii Farmaajo uu rabo ama ninka kale saaxiibkiisa ah hadda aniga magaciisa hadda ma sheegayo wuxuu rabo la sameeyay garan kartaa yani prime ministerka hadda yimiday ayaa lagu badbaaday inta hadda la badbaaday oo Soomaalida soo timid waxa sabab u ah roob leh khayr Allah siiyan leena aniga u duceynaa waxyaabaha aadka loo hadalhayo ilaa hadda qalbiyada Soomaalida aan ka go'in waxaa kamid ah Ikraan Tahliil oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya isku gobol aad ka soo jeedaan xildhibaan aad u ahayd
arrinta igraan tahliil ma jiraa wax aad is leedahay inta aad baartay ka xildhibaan ahaan oo aad ogaatay ama aad meel kula gashay والله runtii horta waa ka xunnahay dhacdadaas aad iyo aad aan uga xunnahay xanuunka badan gabar Soomaaliyeed walaasheen ah mar aniga abtigeedaan baahayo waa garan kartaan dadka kalaanka si kala yihiin laakiin waa ka xunnahay runtii waxa dhacay hay'adaha baaristaan kulli hadda gacanta ku hayo waad la socotaan hadda inuu markii Fahad Yaasiin oo hadlay iyo markii hadda baaristaankiina wuu socdaa kulli cidii hadda falkaas ka dambeysay anagu waxaan leenahay amaan codsanayna sharcigan la hor keeno waana dad sameeyay waxaan wali la arkin gabar Soomaaliyeed in la qaado oo la dilo la waayo wax fiican ma runtii aad iyo aad uga xunnahay waxaan leenahay hay'adaha amniga iyo madaxweyne Xasan Sheekh dad gabadhaas iyo gabadha aamina la yiraahdo labadaba xuquuqdooda inay meel ku soo sheegaan oo aanay dayicin sidii dawladdu hore u dayacday isku turtur bay noqotay waa ka xunnahay runtii aad uga xunnahay waa mahadsantahay xildhibaan muddo dheer aad baarlamaanka Soomaaliya ka mid ahayd sanadkan kumay suurtagelin inaad ka mid noqoto baarlamaanka 11aad waxaan ogahay inaad ka mid ahayd raggii magaalada Beledweyne tagay oo xilka raadiyay iga waran ma runtii waa aad iyo aad mahadsantahay muddo dheer aniga baarlamaanka soo joogay 17 sano hadda familiga kursigaas aan ku fadhiyay waan ku faraxsanahay hadda ninka qaatay waa nin in adeerkay ah walaalkay oo saaxiibkay ah markii aan aniga arkay in markaan aysan ahayn markaygii ayaan iska tanaasulay aniga yani ninka qaatayni waa inaan soo dhaweynaa walaalkay ah in adeerkay ah saaxiibkay ah aad iyo aad aan u faraxsan u qaato waxyaaba aad idin kula eedeeyo baarlamaanka gaar ahaan xubnaha ka soo jeeda Hirshabeelle waxa kamid ah inaad dayacday maamulkaas 2016kii markii la dhisayna goobjooga aad u ahayd hadda oo ay xaaladda maalintii la dhisay meel ka adag sidii ay dad badan sheegaan oo joogtana siyaasi baa tahay ma aaminsan tahay Hirshabeelle inuu ku jirto xaalad adag waa mare mise aaminsan tahay inaad dayacdeen runtii waa runtaa waa la dayacay oo waa dayacantahay runtaa waaye laakiin Hirshabeelle markii la dhisay waxaa dhisay madaxweyne ehel oo ah walaal ah u naxaya dadka aan gacan maroojinayn dadka isu keenay odayaasha isu keenay wixii suuragal ah Soomaali khilaaf iyo dib waa ka jiraya iyo wax waa kala tirsanaya laakiin inta badan inuu xalliyo isku dayay dadku wax u qaybiyay qolo madaxweyne siiyay qolo speaker siiyay qolo madaxweyne ku xigeen siiyay qolo caasimad siiyay dadku waxa loo qaybiyay ama waxba aan si Soomaali isla jirto qaybtii markii ninkaas wuxuu ahaa Xasan Sheekh madaxweynaha hadda xilka yimid oo ahaa markuu ka tagay madaxweynaha waxa laga dhigay Ali Cabdullaahi Cusub madaxweyne ku xigeen Ali Guudlaaw laga dhigay dadku nabad ay ahaayeen waxbay isla lahaayeen waxa muddo kadib adiga hal sano kadib Ali Cabdullaahi waa la riday maadaama la fahmi waayo dadka meesha yimid aysan rabin dad wax garan qof wax garanaysa aysan rabin Ali Cabdullaahi waa la riday dawladdu go'aan ay soo saartay leedahay kursigaas waxa iska leh beeshaas waa garan kartaan wasiir Juxa waa hadalkiisa ka mid ahayd waxa la doortay inuu yiraahdo Maxamed Cabdi Waare Maxamed Cabdi Waare waa kulli wuu joogay wuxuu hadduu wax qabtay haddaan wax qaban idinka saxaafadda aho waad arkayseen waad ka warqabtaan Maxamed Cabdi Waare waxa uu sii dheer inuu kursigii baawar sheerinka lagu lahay oo dayacay oo meel cid la uga tagay isagoo tartamin dadkana waxba u sheegin ayuu iskaga tagay marka istigitaankaas wuxuu keenay in dadkii inta la gacan maroojiyo speakerka labaad cidii lahayd oo Ciise Mudulada laga qaado oo ninkii oo dareewalka ka ahaa mashruuca madax Soomaaliyeed Hirshabeelle kursigii Ciise Mudulada lahaayeen asaa qaatay kursigii beesha kale oo hiiraan lahaydne nin ayuu siiyay leeyahay Ali Guudlaawe yani dibta ka jirta waxa way power sharingkii iyo dadkii wixii ka dhaxeeyay ayaa la isdaba mariyay xagooda darawalka ah ninka sheegaysa ma Hirshabeelle ka ah mise dawladda Soomaaliya waxa way ninka dhisay waxa lagu dhisay Habarqadiijo Hirshabeelle hadda dhisay labaad waxa lagu dhisay garaktan baarlamaanka waxa lagu qoray Habarqadiijo madaxweynaha waxa lagu sameeyay Habarqadiijo madaxweyne ku-xigeenka waxa lagu sameeyay Habarqadiijo gudoomiyaha baarlamaanka waxa lagu sameeyay Habarqadiijo gudoomiyaha ku-xigeenada waxa lagu sameeyay saas kursigii ay Ciise Mudulad lahaayeen waxa qaatay isaga qaatay waa garan kartaan hadda waa wax cad oo ma aha wax qarsoodi ah anaga waxaan leenahay markii Hirshabeelle markii la dhisay Urdun ayadoo ahaa ayuu wuxuu yimid farmaajo isaga kala gooyay isaga dhibta ka shaqeeyay iyo dadkii gacmaha u ahaa isaga u adeegay hadda marka waxaan leenahay Hirshabeelle bad qabto oo caafimaad qabto hala dhiso Hirshabeelle waxa isteedada waxa loo dhisay runtii dareenkaygu wuxuu yahay isteed marka la leeyahay dadka in xukunka ay gacanta loo geliyo oo in amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo siyaasadooda ayaga inay ismatalaan dadka tartanka ka dhaxeeya hadda isteedada marka tagtid Garowe ama Baydhabo tagtid ama Dhuusamareeb tagtid ama Kismaayo tagtid waa garan kartaa xabsi ay leeyihiin
maxkamaday leeyihiin miisaaniyaday leeyihiin dhaqaalay leeyihiin baarlamaanay leeyihiin madaxtooyay leeyihiin hirshabeelle meel qof lagu xidhay qof dambilaha oo qof dili meel lagu xidhay ma laha maxkamad qaado dembigaas qaadaysa ma laha miisaaniyad ma laha bangi ma laha ismaqal kama jiro odayaashii soo dhisi lahaa hadda markii hirshabeelle la dhisay hadda oo cali guud lahaa oo fahad yaasin sameeyey odayaasha labana caleema saarin odayaasha dhaqankana kama qayb gelin anaga xildhibaanaan ahayn inta nalaku casuumana xataa ma aanan tegin yani dad waxay samaysteen gaar ahay ahayd haddana waxaan leeyahay dadkaas ma matali karto dadka meesha jooga ma matali karaan hirshabeelle ma shaqayso mana shaqay doonto dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub iyo istimada u dhashay stateskaas iyo dadka siyaasiyiinta kasoo jeeda waxaan ugu baaqayaa in hirshabeelle tilaab degdega laga qaado marka waxaan rabnaa inaan fahmno dooda marka hirshabeelle ma waxaad leedahay qaabkay hadda ku dhisan tahay totalba sax ma ahanoo waxay u baahan tahay in dib loogu laabto mise doodaada waxa weeye madaxda hadda joogta ma shaqeeyaan horumar uma wadaan mana u qalmaan inay maamulka hogaamiyaan iyadoo power sharing aan dood laga qabin labadaba way tahay ma shaqeeyaan horta adiga waa og tahay markii jowhar aad tagtid waa garan kartaa xabsi male maxkamad male madaxtooye male boliis male cid shaqaysaa ma jirto madaxda hirshabeelle hadda sheegatay inay madax ka yihiin markay jowhar tagaan bilay soo joogaan inta badan xamar ay joogaan adinka waa ogtihiin dadku maqan ama u shaqaynaya ma ahan mid waa midaas dadku ma haystaan madax matasho oo u shaqaynayso oo diyaara in u shaqayso yani fuliixantiisa ma mooga nin kasta wuxuu hirshabeelle ka yahay ama ay ku sugan tahay adinkana waa ogtihin annagana waa ognahay annagu hadda aan hebel asaas iyo hebel asaas aan dhahayn meeshaas maamul kama jiro haddii dadkaas lagu fiirsado oo madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda hadda timid iyo odayaasha dhaqanka iyo imaamka iyo ugaasyada ay ku fiirsadaan dadka hadda meesha joogane hirshabeelle aakharay aadaysaa iska da adduunye hirshabeelle waxaa loo baahan yahay si aanay isteedada uga harin dhalinyarada uga harin fiiri hirshabeelle waxaa rabaa dhalinyaradu inay shaqo hesho waa inay waxbarasho helaan in dadka la hormariyo dadka inaysan ka harin dadkeeda haddii dadkaas aan laga bedelin meesha hirshabeelle dadku way ka haraysaa isteedadu way ka haraysaa yani meel fogaan laga dooni doona insha allahu tacaala waaya marka midaan power sharingka dadku way siyaabo kala duwan bay u macnayaan waxaa la yidhaahdaa ma jirto meel lagu go-aamiyey in madaxweynaha mar kasta uu ka yimaado beesha hadda tabashada qabto oo madaxweyne ku-xigeenka kursigiis ahna ku fadhido ma jira heshiis rasmi ah oo sidaas dhigii 2016kii dhismaha maamulka inta lagu hoolana la gaaray ha wuu jiraa heshiis hadda madaxweyne reer hebelaa iskale meel laguma qoro runtii laakiin cali mahdi maxamed muuse suudiye laxow madaxweyne xasan sheekh markaas madaxweyne ahaa cali abdullaahi geedi shadoor odayaal badan oo hadda imaamka ugaaska odayaal badan oo hadda abgaal ah iyo magaranaysaa qolada wax tirsanaysa ah oo siyaasiyiintooda oo baarlamaanka inta ku jirtay abdullaahi goodaxa joogay anigaa joogay magaranaysaa rag badanaa fadhiyey nuur idu waa fadhiyey waxaan ku heshiinay caasimadan inay jowhar ahaato madaxweynahan xawaada la siiyo mugta wax la qariyaa mugta lama baahne waxa inay cad yihiin sidaasaan ku heshiinay madaxweynihii waa tii la dhisay cali cabdullahi cusmaan doortay madaxweyne xasan sheekh tagay wala caleema saari heshiisa lagu ahaa madaxweynihii heshiiska lagu ahaa farmaajo bedelay hadduu bedelayna xawaadla la keenay heshiiskii hore la raacay markii dambe oo farmaajo boqolkiiba boqol taamka dhamaad dhisayay si danaha siyaasadeed ee farmaajo leeyahay oo nin oo laba hirshabeellaa inuusan meesha madaxweyne usoo doonan si loo ciqaaba nimanka madaxweynayaasha ayaa nimankaa loo keenay ujeedada loo keenay waxaa weeye inaan Soomaaliya madaxweyne kala imaan madaxweyne kale usoo imaan oo farmaajo soo laabtaa loo keenay markaas meesha maxaa diidayay farmaajo hadiiba hal beel loo go'aamiyey inay kursiga madaxweynaha hirshabeelle helaan inuu qof dee asig ku kalsoon yahay oo beesha ka soo jeeda oo kaasoo hadduu heshiis noocaas dhigay kolley waxay ila tahay dadkii waxaas hadda samaynaya aniga kamid ma ahayn laakiin waxaa ka muuqatay qof uu aaminay inuu ka waayay dadkaas qof uu aaminay inuu ka waayay marka adiga oo hadda xildhibaan ah oo siyaasi ah oo reer hirshabeelle waxaad goobjoog u ahayd heshiis noocaas ah oo madaxweynaha mar kasta in la siiyo beesha reer hiiraan mar kasta in la siiyo ana goobjoog ah waaya hadda markii laga bedelayo doodeeda ma gashan waa aniga kan deedan ahaa murashaxan ahaa dawladdu meesha jirta waxay dhahan aniga danaheena ka shaqaymaysid waana kula dirirayna ku dhisay tartanka isaga har dadka kolley markaas hogaanka meesha hayay oo hadda oo injineer gareeyay aan aragnay maalmaha kamid waxay dhaheen anaga beeshaasan kursiga la rabnaa يعني dadka dariska baadiida Fahad Yaasiin iyo farmaajo waxay ku dhisneed dadka dariska ah isugu dhow ee walaalaha ah in la isku diro sida kaliya la isugu diri kara dadkaas waxay ahayd in yani caqabad siyaasi inta la abuuro waxay haysteen loo kala wareejiyo yani qof kasta in la gacan maroojiyo qof kasta idoo raali ahayn ama siyaasadda sida u fahamsan tahay yani dad danihiisa ka shaqeyn kara markaas in meesha la keeno
hadda waa la dhisay 2 sano ku dhow buu joogaa dowladdii waa shaqaynaysaa inkastoo aad u hooseeyo maxaa is leedahay way habboon tahay in lagu kabo iyadoo xaaladdu sidan ay sii tahay isbeddel guud aan la samaynin oo power sharing wax loo dhimin ma is leedahay waa la tuusin karaa runtii hadda ayad quraan hadda kolley ma aho xadiisna ma aho waxaan wax dad samaysteen waa wax maalin kasta wax laga bedeli karaa maalinta la isla garta wax laga bedeli karaa waxay la tahay aniga dadka meesha jooga haddii wax qabanayaan 2 sano hadda joogeen golo wasiir ma dhisin wax aliyaala waxay maalintii idin madaxa tihiin xamar iska joogaan iyo in shareer tagaan miyaane wax aliyaala waxay qabteen ma jiraan qorshe haddii kale yihiin cad oo loo jeedana ma jiro ay qabanayaan marka waxay la tahay haddii hadda lagu eegto iska joogaan dib u dhacan baa state ku dhaca heshiisaa jira oo madaxweyne cali guudlaaw oo la galay dadka tabashada qaba oo kursiga madaxweyne sheeganay in ayagu lahaayeen ee la dusiyey heshiiskaas haddii la dhaqan geliyo maxaad is leedahay wallahi haddee heshiis hadduu jiro oo la dhaqan geliyo cabashada wayba istaagi lahayd sooma hadduu heshiis jiro aniga hadda heshiis inuu jiro ma aaminsani hadduu jiro waa dadka waa la qanci lahaa tabashada waa baabi'i lahayd duruufaha jiran waa laga bixi lahaa marka heshiiska muhiimba hadda maba aha heshiiska waxaa muhiima jiritaanka hirshabeelle ma jiraysaa sidaan ma ku jiri kartaa dadkan hoggaan ma u ahaa karaan ma wadi karaan isteedada kale ma garanaysaa sida hadda fiir dalku wuxuu noqday hargeysa state waaye puntland state waaye galmudug state waaye baydhabo state waaye meesha kismaayo state hirshabeelle state waaye stateka hirshabeelle waa meesha ugu barwaaqo badan dalka isnaay biyaasa ku oli jirtay nimcada meelaha ugu wanaagsan ay ka mid ahayd maanta dadkeeda waa gaajaysan yihiin waa abaaraysan yihiin yani abaara adaga haysto magaalooyinku waa kala go'doonsan yihiin aeroboortka jowhar iyo magaalada jowhar 10 kilomitr soo jiraan lasuma socon karo yani magaalooyinka isuma socdaan yani xataa 10 kilomitr maamulkaas inuu active wax ku garanaysa 10 kilomitr ayuu maamuli waayo amniga sugu waayay 10 kilomitr aeroboortka u dhaxeeya jowhar cali guudlaaw mas aragteen mase u sheegtay tabashooyinkan iyo culaysyaan dhan wallahi cali guudlaawe dhowr jeer anaga la hadalnay hadda markii hore inuu farmaajo usoo laabanayo aaminsanayba dadka ma xurmaynayn haddana ma arkin sida dowladda cusub dhisay ma is leedahay waxaa la joogaa waqtigii ay siyaasiyiinta iyo ganacsatada reer hirshabelle inta ay kacaan si selfi ah ama oo nafsiyan ah ay maamulka u dhaqaajin lahaayeen magaalooyinkooda u dhisi lahaayeen dadkooda u gurman lahaayeen ganacsi iyo horumar loo sameyn lahaa ilan dowlad kaleed wax ma wadi karteen runtii waa su-aal fiican annaga hadda dadka eliidka u ah ama dhaqanka madaxda u ah waa arrintan waa la wadaagnay waxaan ku niri dhibaatadan see la yeelaa waxaa la yidhi hadda dadku hasu yimaada ha tashto annaga marka talooyin aan wadnaa oo dhinac kasta le hirshabelle cid kastoo oo garan karto duruufaha jiro iyo dhibta jirto cid kastoo ka danqanayso ama cid kasta ay dhibayso oo hirshabelle waa aragnay magaranaysaa dhinac kasta oo hadda hirshabelle wax ku leh waxay aaminsan yihiin hirshabelle inaysan dhisnayn ee hadda la dhiso ay aaminsan yihiin dadka inta badan ama ha ahaato magaalo madaxdii meesha ku habboon oo la geyn karo jowhar waa meel yar oo dhiiqaa oo iska garan kartaan yani meel micnaha magaalo madax haddii meel ku habboon in la geeyo madaxtooyadii in laga heshiiyo dadka inay heshiiyaan duruufaha jira in la wajaho in la isu yimaado waxaasaa la rabaa in laga hadlo laakiin dadkan dadka isu keeni karo ehel u ah markee waa nin wax dafay wax la cararay dadka isuma keenaya mugta nin wax oo dad gaar ay u sameeyeen dadkii gaar ay u sameeyeen meesha way ka tageen aniga waxaan leeyahay marka dadkaasi reer hirshabelle waxay u baahan yihiin qof u naxaayo wax u qabanaayo danqanaayo dadkuna ay aamini karaan masiirkooda ay ku aamini karaan in la helo qof dadka ka dhuumanayo oo ma garanaysa 2 sano meesha jooga hataa golaha wasiir ma dhisin golaha wasiirada oo waara dhisay ayaa weli iska jooga meesha iyagana waa garan kartaa duruufaha ku sugan yihiin xaaladii ku sugan yihiin waa garan kartaan ma fahamta golaha wasiirada galmudug iyo golaha wasiirada puntland ay mushaar qaataan baawar ay leeyihiin xafiisay leeyihiin wasaaradii qabaan meel ay degan yihiin dhaqaalaha kulli la siiyo galmudug waa la siiyaa hirshabelle xagee ku baxdaa salaam marka de kulli waxay ku baxdaa dadka meesha joogan baa la weydiin soo baxdo laakiin dadka fiiri magaalada jowhar xabsi ma leh oo maxkamad ma leh oo meel qofkii qof dilaa xamar loo soo qaadaa diyaar soo qaadaya ama la iska daynaya labaas mid u dhahay marka canshuur baa la qaadaa shabeellada dhexe hiiraan canshuura la qaadaa yaan dhexe mar aan xisaabaad iyo wax aan sameyno waxaa noo soo baxday hiiraan inay markay ugu yartahay 40,000 ilaa 30,000 in ka badan laga qaado maalintii shabeellada dhexe la mid lacagtii budgetka ah taageeradana waa la helaa ka xildhibaan ahaan maadaama siyaasiyiintii gobolka aad tihiin marna ma ogaateen lacagahaas iyo meelaha la geeyo ma aad iyo aad u mahadsantahay waa su'aal fiican waaye horta waxaan leeyahay canshuuraha la qaadaa waa canshuurihii Allah u naxariistee labadii nin odayaashooda meesha soo xukumi jiray xasan cabdulla qalaad
tuu qaadi jiray iyo miduu maxamed deere qaadi jiray la qaaday wax maamul oo meesha ka jiro oo canshuur qaado nidaamsan oo boleeto leh oo bangi ku dhaco oo transparency lama jiraan waxaan ka wadaa ceel cadde isbaarada taallo iyo isbaarada jawiil taallo unbaa cashuur laga qaadaa akoon dowladeedna kuma dhacdo dad gaar ah ku dhacda dadkii hadda markaas qaad unbaa iska qaatay sidii uun magaraysa 2002 ahayd 2002 maxamed deere maamulkiisa sida u qaadi jiray canshuurta ayaa loo qaadaa xaggana qalaas u qaadi loo qaadaa waagaa wixii leey ma ahayn goobo canshuur oo dadweyne loogu adeego dowladii lagu celiyo ma ahayn waxay isbaarooyin taasaaba micnaha dadka iyo dadka lagu difaacayay taas markaas xasan cabdulla qalaad iyo maamulahay maxamed deere taasaaba dowladdii dhexe lagu soo dejiyey oo lagu maamulay oo dadku adeegaysay waa maasanta gabagabadii ma waxaa qabtaa madaxweyne cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisii iyo madaxda hirshabelle in la bedelo oo laga fakaro madax cusub oo dhista dowlad bulshada hogaamisa mise waxaa qabtaa in ayaga la taageero oo lala shaqeeyo oo maamulka isbedel ayagana la yimaadaan dadka ehel u ah oo hogaamin kara oo u danqanayo oo canshuurtooda u ammaano gelinayo oo horumar u samaynayo oo la tartamaya isteedada kale in loo dhiiban qabaa ayaga maaha dadkaas ayaga maaha macnaheedu waxaa marka ayaga ma maamuli karaan yay ka go-an tahay talada dadkay ka go-an tahay haddii dadka la maamulaayo dee mugta qofka hadduu meesha iska joogaayo oo u joogaayo dee si kale waa gaar laakiin bulshada reer hirshabelle dadkaasu inaysan matali karin way caddahay yani waxaa sii dhaafsisan hadda aan meedi ka sheekin anaga sheekin waxaas waa caddahay inaysan maamuli karin yani wax cad waaye adna waa og tahay qof kastoo Soomaaliya waa og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa og yahay imaamyada ugaasyada iyo malaaqyada kullu og yihiin يعني dadka marka dadkii dhaqanka ah hadii og yihiin oo siyaasiyiinta og yihiin oo bulshada reerka og yihiin waxa waa og yihiin allada mudan in la ogaado dadka qaar inay og yihiin dadkaasu inaysan ehel u ahayn in maamulkaas hagaajiyaan horumariyaan waxbarashada wax ka qabtaan jidadka wax ka qabtaan horumarinta ka qabtaan 2 sano ayay hadda meesha joogaan irbad meel ay ka qaadanay meel geeyna ma jirto dadkan si lagu matali karo dadku waxa lagu matali karaa in maalin walba shaqo maalmeed inay jirto maalin kasta wixii la dhaqaaji waaye wax kala dhaqaaji hadda dadka abaara ka jiro baan oraada ka jira baan waliba hirshabelle waxay ka mid tahay meelaha gaajada loogu dhintay wax ka hadla maartay wax u taagan maartay wax qaaraan ururina maartay wax dadka magaalada ganacsatada hirshabelle abaabula oo qeylaamin maartay dowladda dhaxmay wax ka sugayaan waxay kale iga qaadanaa waa maasanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rabaa su'aasha ugu dambayso waxa aad u diri lahayd maxaa weeye hirshabelle kali dhibaatada ma qabto maamul goboleedyo kala badan baa dhibaatadana ka jirta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay marka hore waa soo dhaweynayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay soo dhawow khayr Allah siiyo madaxweynihii ku haboonay waqtigan dalka inuu yimaado waayo dalku waa kala irdheysan yahay colaadaha ka jiro waxa ka jiro is-aamin la'aan waxa isteedadu waa ishaystaan khilaafaada ka jiro waxaan leenahay Soomaaliya heshiisa oo dunida heshiisa asaab ballan qaaday inuu ka shaqeynayo dadka inuu heshiisiyo meelaha dulunka ka jirana dulunka dib u eego ayaan leeyahay aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan hore maxamed xasan ibraahim qoona ayuu kaasiha oo raadiyo kulmi wareysi gaar ah ka siinay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya si gaar ah waxaan soo dul taagnay dhibaatooyinka jira maamul goboleedka Hirshabelle waa maasada mudan xildhibaan yaa ma adii